wado dekada magaalada Berbera ayaa la sheegayaa haatan inuu heer gabagaba marayo. Mas'uuliyiinta Somaliland ee dekada Berbera ayaa rajo ka muujiyay in 6 bilood ee soo socota uu dhismuhu soo gabagabobi doono, isla markaasina ay dekadu hawl bilaabi doonto. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda rajo weyn ka qabta adeegsiga dekada magaalada Berbera. Wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Berbera. tani waa dekada magaalada Berbera oo halbowlo u ah dhaqaalaha Somaliland, waxaana ka socda marsadan hawlo baaxad leh oo lagu ballaarinayo kadib heshiiskii ay hore u gaadheen Somaliland iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga leeyahay. muddada hawlaha adeega dekada ay la wareegtay shirkadda DP World waxay bilaabeen dhismaha 400 oo mitir oo cusub oo ah qaybta konteenarada dekada, taas oo hadda maraysa meel gabagaba ah. waxa kale oo isbedel ay ku sameeyeen habkii hore ee dekadu u shaqayn jirtay si ay ula jaan qaado dekadaha caalamiga ah. dekada Berbera intii heshiiska ay galeen shirkadda DP World iyo Somaliland Port Authority isbedel weyn ayaa ku dhacay dekada. markii hore waxaan ahayn traditional port, laakiin maanta waxaan u gudubnay international port. runtii waxaa kusoo kordhay 400 oo mitir oo container terminal ah loo design gareeyay inuu la standard noqdo international containers terminalka. guud ahaan marka ay dekadu 90% waa gabagabo. run ahaantii waxaana rajaynaynaa sanadkan 6 bilood oo horeeya inay dhammaystirmaan dhismayaashii iyaguna xafiisyada ahaa. dhismaha iyo casriyeynta dekada waxaa barbar socda tayeynta shaqaalaha iyo kor u qaadista aqoontooda si loo helo shaqaale Soomaaliyeed oo xirfad u leh qaybta hawlaha shaqada ee ajaanibka looga baahdo. waxaan keenay macallimiin fara badan oo tababara shaqaalaha si loo gaarsiiyo heer caalami. haddii aan shaqaalaha tababarin wax soo saarka ka fulaysaa intii ma jiro. human resource-ka ugu muhiimsan in la tababaro, safety-ga iyo aqoontooda oo la kordhiyo. dhalinyarada fursadaha shaqo ee ku soo kordhay dekada Berbera ka faa'iideystay ayaa qaarkood yihiin kuwa ka soo qalin jabiyay jaamacadda culunta badda ee magaalada Berbera. magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Ali, waxaan ka soo baxay jaamacadda culunta badda Berbera Maritime and Fishery Academy. waxaan tartan u galay shaqo ka banaanatay Somaliland Port Authority dekada qaybta maariinka. hadda waxaan ka shaqeeyaa cigaal taagboot, waxaan injineer ka shaqeeya qaybta makiinada. ka kale waxaa socda dhismaha wadada xidhiidhisa magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa oo jidkii hore gabi ahaantiiba dib loo samaynayo. wadadaasi oo culays weyn ku haysay gaadiidka xamuulka qaada iyo kuwa dadweynaha kadib markii uu burbur weyn ku yimid wadadaasi, maadaama jidkaasi la dhisay 1976 looguna talagalay inay maraan gaadiidka qaada 6 tan iyo wixii ka yar. Hashim Sheikh Umar Good, qubanaha VOA Berbera. ugu dambeyntiina hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un